السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta insha Allah waxaan ka jawaabayaa su'aal oo la soo weydiiyey oo la yiri calaamooyinka jinniga zaaniga ah see lagu garanayaa intaysan maaragtay sheekada aysan meel xun gaarin oo qofka maaragtay si dhaqso iskaga gaari karo intaysan arinta xumaanin. waxa way daa'iman calaamoon yaryar ayaad maaragtay isku arkaysaa hadduu jinniga zaani uu yahay oo jirkaaga uu ku jiro. waxaad isku arkaysaa tan ugu horeyso waxaad noqonaysaa qof oo maaragtay oo attractive ay dhahaan gaalada attractive, yacni waxaad arkaysaa gabdhahan ka hadlaya hadda wiilasha ay dambeeyaan, waxaad arkaysaa yacni jidka haddaad socoto niman oo maaragtay oo wax ciyaar soo ka raadinaya oo ku yeeraaya mise ka ku daba socdo iyo waxyaalahaas isku arkaysaa. calaamooyinkaana waxa waaye waxyaalahan oo kale hore iskuma arki jirin. waxaad arkaysaa ragga inay ku daba kacayaan meel walba aado. waxa waaye jinniga jirkaaga ku jiro calaamooyinkaasoo ka bilaabaa horta calaamooyinkaas ayuu ka bilaabaa. qoftu waxay noqonaysaa qof oo ragga dhan daba socdo oo maaragtay ay rabaan inay wax ku sameeyaan, yacni xalaal ahaanna ma aha, waa zina ahaan waa. calaamada kale oo yar oo isku arkaysa waxa waaye jirkeeda ayay cajibinaysaa yacni waxa waaye hortii musqushay gali jirtay way qubaysan jirtay, markay qubayska ay dhamays horay ka soo baxaysaa. hadda waxay bilaabaysaa jirkeeda markay qubaysan inay isfiiriso oo maaragtay dhinacaana kaa xun dhinacaana ka fiican tahay inta waa qurux badan yahay, iyada jirkeeda ayaa iscajibinaya aad isku cajibinaysaa. heer xataa wuxuu gaarsiinayaa maaragtay in oo maaragtay operation ay aado. operation oo waxaan ka hadlaa oo la isku qurxinaa meelaha oo jirkeeda ka xun ayay iska soo operation ku aadaysaa. sanka ha noqdo, wejiga ha noqdo feeraha ha noqdo, naasaha ha noqdo, dhabarka ha noqdo, gadaal ha noqoto, meesheerad ha noqoto. marka waxaad arkaysaa qoftii markano ihtimaam fiican ayay yacni hortiina waxa waaye ma kala jecleen, qof iska caadiye ahayd. hadda waxay bilaabaysaa jirkeeda inay fiiriso gabar xataa waxaan arkay hadda kahor oo maaragtay maalin kas waa imaanaysaa kaamarada horteeda dhiganaysaa, dharkay iska dhigaysaa, waa jeejeysanaysaa, dhinacaanay fiirinaysaa, iyadoo qaawana fiirinaysaa, video ayay iska duubaysaa. marka habeenkii markii la gaaro sariirta markay aadda habeenkii videogaas oo maanta dhan maaragtay ay iska duubaysa ayay fiirsanaysaa. iyada ma aha waxa fiirsanayo, waa jinniga zaaniga jirkeeda ku jiro ayaa jecel waxyaalahan, ayadoo qaaqaawanoo rabaa inuu fiirsado. marka habeenkii daaranaysaa iyadoo meesha maaragtay habeenkii sariirta iyadoo markay qurta ayay daaranaysaa. markii quraanka aan saarnay aan fiirinayna waxa waaye asaa yiri aniga maaragtay waxaan aan jeclaan iska fiirsado. ayada nafteeda markii maalmo quraan uu ku socday indhaha kala furtay way yaabtay inta video ay iska duubtay oo telefoonkeeda ku jiro ayay la yaabtay oo marka isku xishootay iyada iska tirtirtay wixii oo dhan. marka waxyaalahaas oo kale la isku arkaya. waxaa kale oo qofku isku arkayaa in uu bilaabo keli ayuu jecel yahay inuu bilaabo, ayuu jecel yahay inuu bilaabo. ma raba inuu dadku soo dhex galo, incizaaliya ayaa ku dhacaysa, dadka dhan ayuu ka harayaa. wuxuu kaloo isku arkayaa dhaqdhaqaaqna cawradiis, gabadha cawradeeda ayay dhaqdhaqaaq ka dareemaysaa, wax baa ka dhex qaylinaya cawrada dhexdeeda. arrintaasna waa isku arkaysaa. wuxuu kale isku arkaysaa in oo ma aragtay waxay kaloo isku arkaysaa in ay ma aragtay haddii gabar la qaba ay tahay inay ninkeeda inay dhibsato ayay bilaabaysaa. waxay keenaysaa inay niman kale maaragtay ay niida gashato. gabar waxaan aqaanaa 15 sano, wallahi 15 sano qol ayay jiifanaysaa, asana qol ayuu jiifanaya, ninkeeda qol ayadana qol. markaan quraanka saaray oo aan iyada interview ka qaaday aan la fariistay waxay tiri habeen waliba nin ii imaadaa ay tiri sheekh, habeen kastoo ii imaadaa ragga ugu dhalinyaro badan ayuu iska soo dhigayaa, ragga ugu qurux badan ayuu iska soo dhigayaa. habeenkii intaadan sariirteeda korin dhar qurux badanaan gashtaa, cataran marsadaa. marka ninkeedana aan fiiriyeyna ninkeeda naftiisu waa sixrin yahay, ilaa waxaan oo dhan indhoola looga dhigay maba ujeedabo.
ما كلا جعل نافتي سمارك إن قولك إسك جيفت أصلا قولك أصلا نفتي وسحرية لأن ننرق أقولانا ما جرو إن حاسكيس شن يتمن سنة قول جيفت أصلا قولك الجيفت قف أقولانا مال marka saas ayuu ahaa intaasoo sanooyin laana asaga naftiis waa jirana qof jiran ayuu ahaa oo u baahan cilaaj marka calaamooyinka zinada saas loo markaas kadib ayay wax gaaraysaa inuu ma arki qoftaan ma aragtay oo habeenku u yimaado u tago oo ma aragtay oo wax waraba ku sameeyo mar wuxuu isku soo dhigaa aabaheeda sidoo niida ugu jibiyo mar wuxuu isku soo dhigaa adeerkeeda mar wuxuu isku soo dhigaa walaalkeeda mar wuxuu isku soo dhigaa abtigeeda yaani niman rag oo ma aragtay ayida la dhash oo ahal u ah ayuu iska soo dhigaya sidoo iyada ma arkino xusn iyo ma aragtay iyo walwa iyo walbahar uu ku abuur oo isla yaabto subaxdii markay soo kacdo maxaa way waxaan inay dhahdo gabar waxa aan arkay oo aabaheeda jinniga aabaheeda iska soo dhigay waxay tiri sheekh subaxdii markaan kaco aabahay wajigiisa ma fiirin kar xanaaqale ana u qabo marka heerkaas ayaa qofta la gaarsiinaya inay ma aragtay familgeeda lagu diro oo iyadana ay ma aragtay oo habeenkii loo tago oo ma aragtay oo zina lagu sameeyo wal ciyaad billah heer waxay gaaraysaa maana caday inuu u yimaado u tago gabar waxaan daraad la hadlaayay waxay tir anoo meel iska fadhiyo gabdhaha asxaabteedan fadhiya mise waxaan fadhiyaa iskuulan fadhiya mise waxaan fadhiyaa suuqa dhexdiisan aan fadhiya meel baan fadhiya mise restaurant ayaan fadhiyaa waxaan dareemayaa ay tirnin inuu ii tagaay anoo fadhiyo cawradiisan dareemayaa ay tir inay igu jirto wal ciyaad billah marka heerkaas ayuu qofka gaarsiinaya wal ciyaad billah ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda waxaan ka qabsado ilaahay subhanahu wa ta'ala gabdhaheen ilaahay hanoo xafido waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badbaadiyo ninkana markuu uu galo jinniga waxa waaye wuxuu bilaabayaa asagana inuu ma aragtay ko calaamooyinka lagu garanayo waxa waaye wuxuu bilaabayaa inuu gacantiisa isticmaalo gacantiisa ayuu isticmaalaa masqusho gala maanta dhan masqulo ku carraay gacanta loo isticmaalaa maanta dhan waxa biyo iska soo saaraya waxa doo uu yahay ma aragtay haday naag tahay habeenkii u maanaysa hadoo nin yahayna ma aragtay oo waxa uu yahay qowmuluut haduu yahay ninka wuxuu arkayaa he is interested in men nimanka ayuu jecel yahay inuu fiiriyo ninkuu fiirna ninka sii socdo fiirna kan soo socdo fiirna meeshuu taagan yahay maanta nimanka rag loo fiirnaya حتى مارك خوفك مركو سلامة سانو وخبنا قربكو خبنا عجركو قعنتك سارة يعني واحد أركي سانيكا إنه واحد قلدية something wrong واحد إنه كقلدية ميلا أو خفك أو قعنتس أنساري كرن أيون نمك رجع كسارة إلا والعياذ بالله أو هير أو قار إنه اللوات هذا والعياذ بالله إلهي أنا أكريه مرك وحوا نيك نبكاس أيسرن وحا كلو لغي خبنا يا حاسكيس أمتها يكرو حاسكيس أمتها يكرو أو حلال أهان ما برات سنكرو waxaad arkaysaa markuu xaaskiisa markuu u tago markuu rabo inuu u tago xaaskiisa cawradiisa ma shaqeynayso wax ma shaqeynaa wixii dhan maaragtay wuxuu noqonayaa maaragtay faa'iido la'aan uu noqonayaa marka calaamooyinka zinada taasaa lagu garanaya inuu jinni zaani jirkeeda ku jiro calaamooyinkaas yaryar markaad isku aragto ina adiga nimanka ragga ugu daba socdaan mise aad aragto adiga inaad isfiirinaysid isku markii waa inaad maaragtay hurdada ka kacdaa oo cilaaj aad raasataa intaysan arrinta meel xun ay gaarin guura lagu diidaya habeenka asaga ku tagaayo marka dambe wuxuu leeyahay ilmay ii dhashay waxaasoo dhan oo sheeganaya marka waxa waa jinniyaasha ugu adag oo ma aragtay oo u baahan waqti badan qur'aan in la saaro oo waqti badan la geliyo marka inta heerkaas aysan gaarin waxaa la rabaa inaad ma aragtay wake up call ay ku noqoto isku markii oo arrintaas waxaad ka qabatay insha Allah intaysan xumaanin oo meel xun aysan gaarin kelmadda gaabneed saas ayaan ku soo gabagabeeyay subhanakallahu bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤال كلام كجواب maanta insha Allah oo la soo weydiiyey sideen ku garanayaa inay guntiimada ay furantay guntiimada ha noqoto mid oo sixir ah mise mid il ha noqoto calaamooyin ma jirto oo lagu garanayo qofka inay guntiimadiisa ay furantay. guntiimadan marka meel kasta ayay taalaan kartaa, caloosha, ilma galeenka, xabadka, garbaha, madaxa, sanka, meel waliba ayaa maaragtay la dhigaa. marka qofka soo ku garanaya in uu maaragtay guntiimada wax jirkiisa ka furmay. marka ugu horeyso waxa waaye qofka markuu cilaajka ku socdo, marka qof quraanka la saaraayo mise asiga quraan isku akhrinayo, waxaa lagu garanayaa calaamooyin ayaa jirto oo lagu garto inuu qofka maaragtay guntiimada ay ka furantay. calaamada ugu horeyso waxa waaye waa dhidid ayaa ka imaanaya. qofka soo quraan lagu wado dhidid ayaa ka imaanaya, dhidid badan oo caadi aan ahayn ayaa ka imaanayo. marka calaamadaas waxaa lagu fahmayaa qofka maaragtay in uu guntiimada ay furantay. meel ay taalla ilaaha og, laakiin guntiimada ayaa ka furantay. tan kale waxaa lagu gartaa qofka quraanka markuu ku socdo mise asaga quraanka isaaraayo, waxaa lagu garanayaa daaco ayuu la imaanaya oo daacanaya, daacadiisa badanaysa. calaamooyinka daacada waxa waaye daacadan waxaa keenta badanaa markuu sixirka qadiim uu yahay oo old uu yahay oo wax badan jirka uu ku jiray, qofka daaca ayaa ka badan, daacadiisa badanaysa. marka quraanka markii lagu wado qofka oo quraanka la saaray hadduu daacdo waxaa soo baxaysa in oo maaragtay in ay guntiimada ay furantay. waxaa kaloo qofka oo lagu fahmayaa inay guntiimada u furantay ishaal, waxa waaye shuban ayaa u imaanaya markuu cilaajka markuu quraanka saarka u dhammaado. mise mararka qaarkood waxaad arkaysaa asigoo quraanka lagu wado wuxuu ku leeyahay musqul ayaan u baahanahay si degdeg. marka musqusha uu aadaya wuu soo shubmaya wuxuuna ahaa qof calool adag oo weligiis maaragtay dhibka haystay inuu musqul galo. qofkii uu cararaya musqul ayuu galaya wuu soo shubmaya. marka adoo quraan saaraya mise quraan akhrisanaya oo cilaaj ku jira, haddaad aragtay inaad shubantay oo daawo lagu siin waxba lagu siin, quraan kaliya aad ku shubantay, marka waxaa soo baxaya in oo maaragtay guntiimada ay furantay. wuxuu kaloo qofku isku arkaya hawo ayaa gadaalka imaanayso, hawo maaragtay ayaa gadaalka imaanaysa. marka qaarkood asagoo quraan la saaraay iyo asagoo quraan issaaraay. iyo waxaa kaloo hawo ka imaanaya gaar ahaan gabdhaha dhinaca oo raximka cawrada hore ayuu ka imaanaya, hawo kuleel ayaa ka imaanaysa. waxaa la fahmaya in oo maaragtay guntiimada ilma galeenka ku jirtay inay furmantay ayaa lagu fahmaa. waxaa kaloo lagu fahmaya qofka inay guntiimada ay ka furantay qunfac uu qunfacayaa. qunfacaasna waxaa soo raacaya xaaqa weyn ayaa soo raacayso. marka taasna waxaa lagu fahmayaa in oo maaragtay qofka guntiimada xabad ku saarneed ay furantay. waxaa kaloo qofka yani guntiimadiisa furantay waxaa lagu gartaa asagana diif badan ayaa ka socdo. guntiimada sanka ku jirta wixii sanka ku jira oo dhan oo maaragtay waxaa badanaa loo isticmaalaa sixir almashmuum, sixirka la uriyey oo sanka fadhiyo. qofka marka waxaa arkaysaa biile ka socdo, quraanka intuu ku socdo maanta oo dhan sanka loo tirtirayaa. taasna waxay caddaynaysaa in oo maaragtay qofka sanka waxaa ugu jiray in oo ka soo baxay oo maaragtay wixii sanka fadhiyey oo soo foqoy. alxamdulilah. marka qofka waxaad arkaysaa sankii si fiican ayuu uga neefsan karaa, hawo fiican ayaa soo galaysa, waxyaalo badan isbedel ayuu isku arkaya. xataa dadka maaragtay shubmaayo wuxuu arkaya يعني qof oo 5 kiilo ka degtay oo kale ayuu dareemay, khafiif ayuu dareemay, laana guntiimada badana iyo sixirka jirka ku jiro culeys ayuu qofku u keenaa. marka qofka khafiif ayuu noqonayaa. hadduu qunfacana oo maaragtay xaaqa ka timaada xabadkiisa iyo dhuunta wuxuu ka dareemaya nafis ayuu ka dareemaya, hawada si fiican u qaadanayo. waxaad arkaysaa qofkii uu nafisaayo. markuu dhididana sidaas oo kale qofka wax baa ka soo fuqaayo, daacsada sidaas oo kale. qofka daa'iman uu dareemaya inuu soo nafisay oo maaragtay wax baa ka degaya. marka calaamooyinkaas haddaa iska aragta axmed illah subxaana wa tacaala, waa inaa ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay
aad ku u mahad celisaa ilaahay subxaanahu watacaala wixii kaa soo saaray. marka waxa waaye badanaa qofka marka oo maaragtay oo qur-aanka dhegaysanaya mise is cilaajinaya waxaa fiican biyaha oo tahliish inuu badsado, biyo badan inuu cabo, sida waxyaalahan oo kale uu isku arko. waxyaalahan oo kale ayaa kasoo baxayo. marka waxa waaye qofka maaragtay markuu arko inay wixii inuu ka yimid markuu arko wuxuu markaas sameynaya inuu ku celceliyo ayaa fiican. mathalan qofku waxaa la rabaa suuradooyinka markaas uu akhrinayo maaragtay cilaajka adiga markaad sameynaysay waxa uu kaaga yimid dhididka ha noqdo mise shuban ha noqdo mise wuxuu rabo ha noqdo, inaad caafimaadkaaga ayaa ku jiro inaad ku celcelisid waay. suurad taaha, suurad yaasiin, suurad saafaat, suurad albaqara, suurad nisaa, waxay rad ha noqoto, suuradday rad ha noqoto oo markaas aad akhrinaysa oo mise wadaadka oo waxaas oo qur-aanku ku saarayay suuradda uu akhrinayo waxaa fiican inuu haddana fadhi kale maaragta inuu ku yeelo oo suuraddaas mise aayaddaas mise wuxuu rabo ha noqdo inuu ku celceliyo, lianna cilaajkaaga ayaa ku jiro. marka qofka waxaa fiican badanaa maaragtay hadduu suurad oo caafimaad ugu dareemo inuu ku celceliyo. biyo tahliishana always maaragta daa'iman biyo tahliil inuu qofka cabo waa fiican tahay always markuu qur-aanka dhageysanayo iyo marka qur-aanka la saarayo in biyo tahliil la siiyo insha allah aad ayay u fiican tahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala ajri xasanada naga siiyo kelmadan aan soo jeedinay. subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa ant nastaghfiruka wanatuubu ilayk والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.